madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud oo ay ku helinayaan xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxa ay socdaal ku soo mareen degmada Baki ee ka tirsan gobolkani Awdal maalintii shalay iyo sidoo kale degmada Dila iyadoo degmooyinkaasi lagu soo gaara bixinayay baahiyaadkooda gaarka ah sidoo kale waxyaabaha ay aad ugu baahan yihiin waxaana ugu horeyntii lagu soo dhaweeyay degmada Baki iyadoo halkaas uga xog warameen shirka degmada Baki oo soo uga warbixiyay waxyaabaha kala duwan ee degmadaasi sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo la hadlayay shacbi weynaha degmadaasi Baki iyo sidoo kale laga shaqeeyay aad baan ugu faraxsanahay waxa kale oo baahi xoog leh loo qabaa oo talaawada halka ka baxda ila xooray tagta ee isku xidhay Djibouti way baaburada khudaarta ka qaadaan kan hababka ayaa inta badan ay ku dhibadan tahay tan hadii la ilaa wixii laga qaban karo ee xukuumadda laga qabanaya soo kale labada wada ee soo galaba taruuqiyo tan kale xeero labadaba waxaanu ku bixinay in la baneeyo banaynta la baneeyay laga shaqeeyay waxaan insha Allah taala ku sii dari doonaa oo aad aragteen aanu ku soo bandhignay qorshaha marka laamiga la sameeyo qorshaha soo socda in laamiga laga dhigaano ku soo daray qorshaha dalkoo dhan wadooyinka isku xidhaya waa koobay ka tahay markii oo ay ku jirtaa in lagu soo xidho waxa weeye boorama ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo isagoo hambalyo u jeediyay guud ahaan shacbi weynaha aadka u soo dhaweeyay aad baan ku mahadcelinaynaa sida sharafta iyo qiimaha aad noo soo dhaweyseen sacaadadiinahay aad baan uga mahadcelinaynaa sharafta iyo qiimaha rogsteen hadallada wanaagsan halka ka dhacay waxaan ii sheegaynaa anigoo waxaanu dalka u maraynaa oo madax lagu nahay inaanu xumaan u noqonno baahiyaha ka jira waxa dadku qabsaday waxa ummaddu qabsatay iyo baahiyaha ka jira xogaannimada aanu noqonaynana ma aha midaanu xoolnimo khali u noqonayno waa midaanu diyaar u nahay inaanu wax ka qabanno oo wax ku tarno oo wax ku kordhinno oo saxano oo wixii dadku qabsanayay ugu biirino annaguna aanu ka arkay markii uu dhamaaday kulankaasi ayaa waxaa loo soo dhaqaaqay dhinaca degmada Dila kaasi oo iyadna loogu sameeyay soo dhaweyn aad u ballaaran isla markaasina ay isku soo baxeen guud ahaan dadka degan degmadaasi iyagoo oo nagaalulayay isla markaasina ruuxayay calanka Soomaaliland iyagoo oo muujinayay taageerada oo hayaan madaxweynaha ayaa waxa uu wareyntii halkaasi ka hadlay odayaal dhaqameedka oo iyagu ku hambaliyay isla markaasina madaxweynaha ku soo dhaweeyay degmada Dila وفود الله إيمانسا وفود لباريها هلكا أكتم أدانا وحرونا هالغشين الدين سيدا اللواء وحب آخر خدمة وحوال الضوء الأبي وحبف أفتي سبسوا بحول الأبي نمجي هذا يرى كشقية نواب سودويننا ونقوم معضقينا oo kalena waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha rasaabka gobolkani Awdal Cabdu Axmed Aayar magaalada Dili ay biyo yeelato oo qasabadii biyo soo gaalaan oo ay biyo durduro oo qasabada ka cabto waxa kale oo iyana ugu jirta jadwalka in magaalo cad laga sameeyo oo riig laga taagay iyana madaxweyne waxa ugu soo dhaweynaya gobolkii nabadda marka la eego gobolada Soomaaliland gobolka ugu nabadda badan oo ay ugu horeysa Dilo oo ah gobolka Awdal waxa la furi doonaa hadii la yiraahdo gurigii martida waxa kale oo runtii sidii la sheegay dhiman wadada u dhaxaysa xagga barigeedii ka soo gashay ee aanu saaka soo maray oo iyana kharashkeedii diyaar yahay ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo dalka ayaanu su'aal ku marnaa oo la badan dalkaan marnaa qeybta ku soconaa imika insha Allah taala waxaan rajaynayaa baahiyaha la sheegay iyo dhibaatooyinka aan sheegateena inaan waxaan ku qaban karno oo ku qabanaa waxaan kala hadhinayna ma jirto wixii itaalka iyaga ah ee dawladda noo soo tagasha
waanu ka qabanna waana fulinayna waana socodsiinayna insha allahu tacaala. kastaba haatee waxaa ugu dambeyntii loo soo dhaqaaqay ismarkaasina lagu soo biyo shubtay xarunta gobolkani awdal ee magaalada Boorama iyadoo oo ay soo gaadheen cabaaro maqribkii ayaa waxaa oo madaxweynuhu kulan albaabadu u xiran yihiin kula yeeshay hoteelka weyn ee magaalada Boorama Hotel Race hogaanka dhaqanka gobolada galbeedka Somaliland iyadoo oo kulankaasi lagaga hadlayay xaaladda guud ee gobolada. Nuruddin Cabdullaahi Dugsiye, telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Boorama.